السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا موقال عصب وان كغا حدلي دونو تاريخ مغالada قدس iyo 8 arin aadan ogeyn oo ka dhigay Masjidul Aqsa mid ku weyn muslimiinta هنا أرض لها المجد. بيت المقدس مغالada قدس qibladii hore ee muslimiinta magaala madaxda shacabka Falastiin magaala diinta islaamka taariikh weyn ku leh maanta waxaynu ka hadli doonaa magaala madaxda dalka Falastiin ee Qudus waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan caalamka wuxuuna cimrigeedu ku dhow yahay 5,000 oo sano Qudus oo macnaheedu yahay magaalo barakaysan waxa magaceeda lagu xusay kutubka Tawraad 680 jeer قدس، جيروسلم، كابتوليا، إيليا، يبوس، صهيون، iyo Baytul Maqdis waa magacyo kala duwan oo wada tilmaamaya halkan magaalo waxaana ku soo magacaabay magacyadan oo dhan umadihii kala duwanaa ee soo maray markii ugu horeysay taariikhda 2500 sano ka hor miilaadiyada magaalada Qudus waxaa degay reer Kancaan oo ahaa qabiil Carbeed 977 sano ka hor miilaadiyada waxaa magaalada gacanta ku dhigay Nabi Daawud calayhi salaatu wassalaam oo ka talinaya 40 sano waxaana ugu dambeeyay wiilkiisa Nabi Suleymaan calayhi salaatu wassalaam oo isna gacanta ku hayay 33 sano kadib Nabi Daawud calayhi salaatu wassalaam Qudus waxaa ka soo taliyay boqortooyooyinkii Baabilon, Bershiya iyo Romania waxayna ku jirtay gacanta Roomaanka ilaa uu Islaamku kala wareegay sanadkii 621 miilaadiyada Qudus waxay martigelisay booqashadii nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo laga dheelmiyay Kacbada barakaysan loona dheelmiyay Masjidul Aqsa khilaafadii Umar bin Khadaab radiyallahu anhu magaalada Qudus oo loo aqoon jiray Iiliya waxa furtay muslimiinta oo uu hogaaminayay Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah wuxuuna Umar magaceeda u bedelay Qudus waxaana ugu dambeeyay dawladihii Umayyiyiinta iyo Cabaasiyiinta waxayna saldhig u ahayd Islaamka iyo dhaqanka Carbeed qarniyo bar kadib magaalada waxaa ku loolamay dawlado yar oo muslimiin ah waxayna ugu dambeyn gacanta u gashay dawladii Salaajiqada sanadkii 1071 Qudus waxay mar kale martigelisay loolankii u dhaxeeyay dawladihii Salaajiqada iyo Faadimiyiinta waxaana xurguftaas ka faa'iideystay Kirishtaanka oo magaalada qabsaday kuna dilay in ka badan 70,000 oo muslimiin ah sanadkii 1099 sanadkii 187 miilaadiyada ayuu Salaaxudiin al-Ayyubi magaalada ku soo celiyay gacanta muslimiinta kadib dagaalkii Xidiin ee uu Kirishtaanku la galay wuxuuna dib u dhis ku sameeyay magaalada markii uu Salaaxudiin al-Ayyubi dhintay ayay Kirishtaanku mar kale dib u qabsadeen waxayna haysteen 11 sano waxaana ka soo celiyay Najmudiin Ayyub sanadkii 1244 sanadkii 1516 Falastiin waxay gacanta u gashay dawladii Cusmaaniyiinta oo haysatay ilaa dagaalkii koowaad ee adduunka oo lagu jebiyay dawladii Cusmaaniyiinta kadib dagaalkii koowaad Falastiin waxaa qabsaday Ingiriiska wuxuuna u sameeyay ismaamul gudaha oo caasimad uga dhigay magaalada Qudus waxayna qaramada midoobay Qudus u aqoonsadeen caasimada Falastiin sanadkii 1947 waxaana Qudus xiligaas ku soo qulqulayay muhaajiriin yahuud ah sanadkii 1948 Ingiriisku wuxuu iclaamiyay inuu isaga baxayo Falastiin oo aan lahayn ciidan iyo siyaasad dhisan waxaana jaaniskaas ka faa'iideystay yahuudda oo ku dhawaaqay dawlad cusub oo caasimadeedu tahay Qudusta galbeed halka Qudusta barina ay gacanta ugu jirtay dawladda Urdun waxaana si toos ah Qudus ula wareegay yahuudda kadib dagaalkii 6 maalmood ee socday ee dhaxmaray yahuudda iyo carabta bishii Juun 1967 tirakoob la sameeyay 1948 Falastiiniyiintu waxay magaalada ka degnaayeen 88.5% halka yahuuduna ay ka degnayd 11.5% oo kaliya wixii xiliga ka dambeeyay yahuudu waxay ku sii fidayeen magaalada ilaa Mareykanku uu aqoonsado caasimada yahuuda sideed arin aadan ogeyn oo ka dhigay Masjidul Aqsa mid ku weyn muslimiinta maxay muslimiintu ugu walwalsan yihiin arinta al-Aqsa maxay tahay muhiimadda ay leedahay magaalada barakaysan ee Qudus maxay u noqotay Qudus magaalo barakaysan
maxay tahay muhiimaddu uu u leeyahay muslimiinta masjidul aqsa ee qudus ku yaal su'aalahaas aan kor ku soo xusnay waxaa ka jawaabaya Dr. Zakir Naik Allah xafida maqaal uu ku qoray luqadda Ingiriiska. Dr. Zakir waxa uu ku soo koobay muhiimadda uu leeyahay masjidul aqsa ee ku yaala magaalada Qudus ilaa iyo 8 qodob waxayna kala yihiin: 1. Qudus waa magaalada saddexaad ee ugu barakeysan dhulka marka laga soo tago magaalooyinka Makka iyo Madiina sida Quraanku uu cadeeyay iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. 2. Masjidul Aqsa waa masjidka labaad ee dhulka laga aaso waxaana dhidibada loo taagay 40 sano kadib markii Kacbada laga dhisay Makka. 3. Al-Aqsa waxa uu ahaa qibladii ugu horeysay ee muslimiinta yeeshaan. Muslimiinta Allah ayaa ku amray inay u jeediyaan wajigooda xilliga ay salaada tukanayaan masaajidkan ku yaala Qudus kahor inta aan Kacbada qibla ahaan loogu amrin inay u jeestaan. 4. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu kula taliyay muslimiinta inay booqdaan Masjidul Aqsa wuxuuna u yaboohay salaadaha inay ku tukadaan sida uu tilmaamay xadiiska ay wariyeen Muslim iyo Bukhari. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay 3 masjid u kala safra: masjidkayga ku yaala Madiina, masjidka barakeysan ee Makka iyo Masjidul Aqsa ee Qudus ku yaal, waxaana wariyay Muslim iyo Bukhari. 5. salaada aad ku tukato Masjidul Aqsa waxaad ka helaysaa naxariis ballaaran abaalmarin halkii salaad u dhigmata 5,000 oo salaadood oo aad ku tukato masaajidada kale. 6. Masjidul Aqsa meesha uu ku yaala magaalada Qudus waa meeshii rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam loogu gudbiyay habeenkii dheelminta Israa wal Mi'raaj. Muslimiinta waxay rumaysan yihiin in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam laga soo waday habeenkii dheelminta magaalada Makka oo u sii gudbay Masjidul Aqsa inta lagu guda jiray habeenkii dheelminta, halkaas uu rasuulka ugu sii gudbay samada, waxaana cadeynaya aayadda suuratul Israa. oo macnaheedu yahay waxa xumaan kana sahan allihii dheelmiyay adoonkiisa habeenkii dheelminta kana soo dheelmiyay masjidka al-Haram una dheelmiyay Masjidul Aqsa, masjidkaas oo barakeysan hareerihiisa si aan u tusino aayadaheena. Alle waa maqle wax walbana arke. 7. Masjidul Aqsa meesha uu ku yaala magaalada Qudus waa meeshii uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku hogaamiyay nabiyadii ka horeeyay una ku tuujiyay salaada kadib uu kaga sii gudbay oo uu ka koray samada si uu Alle amarkiisa ugu soo qaado ummadiisa, amarkaas oo ahaa in lagu soo waajibiyay 5 salaad ee maalin walba aan tukano. 8. Masjidul Aqsa waa meeshii ugu dambeysay ay ku nasteen nabiyadii hore sida Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Isxaaq iyo nabiyadii rafiiqa la ahaa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qudus waa magaalo muslimiin hase yeeshee diimuhu kala duwan ayaa waxay uga dhigan tahay meel barakeysan oo mudan in la hanto. Sooyaalka taariikhduna waxay ku tusaysaa in markasta ay gacanta ugu jirtay qolada markaas gacan sareysa, magacaabisteedana ma ahan qadiyad siyaasadeed ee waa loolan diimeed oo soo jireen ah.